Assalaamu calaykum. Halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa qisada basaasadii Nada Nadiim ee gilgishay laamaha amniga ee Mareykanka, qaybtii labaad. Qisadan waxaa qoray Majdi Kaamil, waxaana soo turjumay Kamaal Axmed Cali, isagoo ku soo saaray cadad ka mid ah cadadyada wargeyska Geeska Afrika. Si aad u fahanto qisada basaasadan reer Lubnaan, waxaa qurux badan inaad soo daawato qaybtii ka horeysay. waraaqooyintii dacwadu socotay si qarsoodi ah looga helay maxkamadda dacwadan qaaday ayaa sheegay in Nada ay dalka Mareykanka markii ugu horeysay ku soo gashay dalku galka waxbarashada sanadkii 1989 iyadoo ka timid dalka Lubnaan, laakiin dib uma ay noqon markii ay dhacday muddadii dalku galka waxbarashada u ogolaa joogitaanka Mareykanka. balse si ay u hesho deganaanshiyaha Mareykanka ee green cardka loo yaqaano, ayaa ay guur been ah guursatay nin Mareykan ah oo lagu magacaabo Chris. Nada waxa ay shaqo mudalabnimo ka bilowday hudheelka Lashish Kebab qaybtiisa ku taallay magaalada ay deganeyd ee Detroit. Hoteelkan oo ah laan ka tirsan hudheelada caanka ah ee sameeya cuntada shiish kebabka loo yaqaano, waxaa mulkiile ka ahayd Nada walaasheed oo uu qabay Dalaal Khaliil Shaaheen oo ahaa ninka iskale hudheelada Lashish Kebab. Shaaheen waa Nada dumaashigeeda ayaa bartilmaameed u noqday waaxda dambi baadhista Mareykanka ee FBI kadib markii ay ku tuhmeen in lacag malaayiin dollar ah oo uu hudheeladan ka faa'iido uu xawilo hay'ad samafal oo uu leeyahay ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan. Sanadkii 2002 ayaa uu Shaaheen u safray dalka Lubnaan si uu uga qayb galo xaflad qaadaan ururin ahayd. Waxa aanu hareer fadhiistay Maxamed Xuseen Fadxullah oo ah sheekh marjac u ah Shiicada Lubnaan. Sanadkii 1983 qaraxii saldhiggii ciidamada badda ee Mareykanka ku lahaayeen magaalada Beirut ee xarunta dalka Lubnaan kadib ayaa uu Mareykanku Sheekh Fadxullah ku daray liiska argagixisada. xafladan labadii qof ee ugu mudnaa dadkii muhiimka ahaa ee ka khudbadeeyay waxay ahaayeen Shaaheen iyo Sheekh Fadxullah. Intii xafladu socotayna waxaa la arkayay labada nin oo sheeko gaar ah dhex maraysay. FBI-da oo daba socota baaritaanada la xidhiidhay shakiga ay ka qaadeen xidhiidhka Shaaheen iyo Xisbullah ayaa sababay in maalin maalmaha ka mid ah ay ciidamada sida gaarka u tababaran ee FBI xoog ku galeen guriga Shaaheen. Baadhistii guriga waxyaabaha ay FBI-du ku soo heshay waxaa ka mid ah sawir weyn oo guriga yaalay. Waxaa sawirkan ku wada jiray Shaaheen iyo xaaskiisa Alfayd Al-Acwar oo ah gabadha aynu hore u soo sheegnay inay walaalayihiin Nada. Lamaanahani markii ay sawirkan galayeen waxay hortaagnaayeen saldhig ciidan oo uu leeyahay Xisbullah. Goobta saldhigani ku yaalaana waxa ay u ekayd jiidda hore ee ciidamada Xisbullah kaga jireen dagaalkii xisbiga iyo Israa'iil. Weliba Shaaheen iyo xaaskiisu waxay si gaar ah u hoostaagnaayeen calanka xisbiga ee huruudda midabkiisu yahay. Baaritaankan ka hor oo ahayd sanadkii 2006 ayaa Alfayd Al-Acwar lagu soo oogay dacwad lagu eedeeyay inaanay bixin cashuurihii runta ahaa ee ku waajibay. markii maxkamadda la geeyeyna maba ay qarsanay si buuxda ayaa ay uga hor qiratay garsoorka. Shaaheen oo odageeda ah isna waxaa raadinayay garsoorka Mareykanka oo uu ugu eedaysnaa inuu argagixiso xidhiidh la leeyahay, laakiin waa ay ka waayeen gurigiisa iyo meheradiisa ganacsi. Kadib ayaanay maxkamaddu soo saartay warqad ay ku baafinayso. Sida ku cad dukumentiyada baadhista ee FBI, Shaaheen waxa uu markan ku maqnaa dalalka bariga dhexe. Si kastaba ha ahaatee, qareenkiisa oo maxkamadda hor yimid ayaa Shaaheen si adag uga difaacay eedaha loo soo jeediyey iyo inuu wax xidhiidha la leeyahay argagixisada. Nada markii dambe ee maxkamadda la saaray waxa ay qiratay inay jinsiyadda Mareykanka ku heshay hab aan sharciga waafaqsanayn iyo in markii ay ka shaqaynaysay xafiiska baaritaanada ee FBI ay heshay xogo aad u sir ah oo la xidhiidha Xisbullah, kadibna ay gudbisay. Nada waxa ay garsoorka hortiisa ka qiratay in basaasidda hay'adda sirta ee Mareykanka aanay halkaas hore ku joogin, balse ay sii waday xitaa markii dambe ay u wareegtay shaqada CIA oo sidii hore si la mid ah ay u heshay xogo aad u sir ah una gudbisay Xisbullah. dhowr fadhi oo ay maxkamaddu waday dhageysiga dacwadan kadib waxay aakhirkii soo saartay go'aankeeda oo noqday in Nada Nadiim oo markan 37 jir da'deedu ahayd ay xogo aad u sir ah oo dad kooban u ogaan karaan heshay, kadibna u gudbisay ururka Xisbullah. Waxa kale oo ay maxkamaddu ku heshay dembiga ah in nin Mareykan dhalashadiisu tahay siisay lacag laaluush ah si uu guur been ah u guursado, iyadoo ujeedadeedu ahayd keliya inay hesho jinsiyadda dalka Mareykanka. Maxkamaddu waxay Nada ku heshay dembi kale oo ahaa in sababta ay jinsiyadda Mareykanka u doonaysayba ahayd khiyaamo iyo inay shaqo ka hesho hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka. Maxkamaddu waxay caddaysay in Nada ujeedada ay ka lahayd helitaanka jinsiyadda Mareykanka ay ahayd keliya inay hesho hab ay kaga mid noqon karto basaasiinta wakaaladaha sirdoonka Mareykanka ee CIA iyo FBI, waana ay ku guulaysatay qorshahaas. Warmurtiyada ay wasaaradda garsoorka ee dalka Mareykanka ka soo saartay Nada waxa ay ku sheegtay in ganacsadaha asalkiisu reer Lubnaan yahay ee Khaliil Shaaheen oo ay u dhaxday Nada walaasheed uu Nada aad uga caawiyay shaqada basaasidda ee ay Mareykanka gudihiisa ka waday. Shaaheen waxa ilaa hadda raadinaya garsoorka dalka Mareykanka
oo ku haysta dacwado la xidhiidha in cashuurta aanu si habsami ah u bixin, inuu dalka ka waday howlo khalkhalgelin kara ammaanka iyo inuu laaluush bixiyey. Dowladda Maraykanku waxay aaminsan tahay in Shaheen iyo xaaskiisa oo iyadana weli la raadinayaa ay ku nool yihiin dalka Lubnaan, gaar ahaan guriga Sheekh Maxamed Xuseen Fadxullah oo dalka Maraykanku u aqoonsan yahay argagixiso caalamiya. Koongareeska Maraykanka ayaa ay gaadhay arrinta basaasnimada Nada iyo xidhiidhka qoyskeeda oo walaasheed iyo Shaheen ahi la lahaayeen Xisbullah. Intii Koongareeska Maraykanku uu ku howlanaa qorshe uu doonayo inuu baadhis ku sameeyo warka sheegaya in Nada ay u shaqaynaysay ururka Xisbullah, waxaa mar keliya soo baxday war kale oo la yaab leh. Gabadh lagu magacaabo Laura oo ahayd xaaska uu markaas qabay Chris, oo ah ninkii sanadkii 1993 guurka beenta ah guursaday Nada, ayaa hadashay oo caddaysay inay wax ka og tahay sheekada guurkii hore ee dhex maray saygeeda imika iyo basaasada la qabtay ee Nada. Waxay sheegtay inay Nada ka baxday heshiiskaas oo ay khiyaamaysay Chris, waayo ma ay wada bixin lacagta ay ku heshiiyeen inay bixiso marka guurkoodu dhammaystirmay jinsiyadda la siiyo. Xaaskan dambe ee Chris waxay sheegtay in odaygeedu xilligaas uu guurka beenta ah guursaday Nada ay da'diisu ahayd 24 sano oo keliya, shaqana aanu haynin, waxa uu ku noolaa guri dhaqaale xumo badani ka jirto. Mid ka mid ah saaxiibada ayaa baray gabadhan Lubnaaniyadda ah oo ka codsatay inuu guursado, iyadoo weliba u ballan qaaday inay laaluush siin doonto haddii uu guursado oo uu guurkaasi sabab u noqdo inay jinsiyadda Maraykanka qaadato. Sidaas ayaa ay sheegtay xaaska Chris oo markaas ay Nada iyo ninkeedu guurka beenta ah isguursanayeen ay ka horreysay guurka iyada iyo Chris. Waxaa xusid mudan in Nada markii ay guursatay Chris aanay guriga kula noolaan oo aanay sida xaas caadi ah ula macaamilin. Nada iyo Chris waxay isguursadeen sanadkii 1993, isla sanadkii xigay oo ah 94 guurkan dartii ayaa ay ku heshay jinsiyadda Maraykanka, iyadoo sanadkii kusii xigay ee 95 iska furtay Chris.